واي مقعد سدحان علي عبد محمد. علي ديار موتا هنا سؤال حلال كودي اه واي سؤال سنه ودعيسا nin baa baadiye lugeynayay kabacdi wuxuu ku soo baxay guri aan albaab iyo daaqad toona lahayn biyana ay gudaha ugu jiraan asagana wuu ooman yahay soo ku dul wareegsanaya ayuu nin kale u yimid ninkii kale ayaa gudaha u galay biyihiina soo saaray meeshuu ka galay iyo meeshuu ka soo baxaan baana wada baasha mandhig raade. soo dabaashay waa guri wax albaab iyo daaqad toona ma laha Gabi taqad malaha soo. waana guri asoo ninkii kolba dhinac ka eegaya ayaa nin kale u yimid kii kale gudaha intuu galay biyihii soo saaray Biyuhu marka intay leeyihiin guriga mu buuxaa. caagid bimay caagid biyaha gudaha ku jirta soo saaray oo ninkii u keenay guriga albaab iyo daaqad ma laha ka galay Xagu ka galay. Ma taa kama jawaabi karo. Kama jawaabi karo. way magacaaga sadaan Faisal Gate. Faisal Gate waa ku soo dhaweynaya walaal ina su'aal ku weydiiyo deer ma tahay Si fiican. Diyaar. waayay islaam baa waxay lahayd saddex dibi beer dusheed bay ugu xidhneed mayna dareerin jirin mid waxay siin jirtay boonshe midna misago midna waxay siin jirtay caws midkaba caan badan baa isleedahay Igu soo celi hada raale. hal mar baan kugu celinayaa islaam beeraley ah ayaa waxa ay lahayd saddex dibi beerta dusheeda ugu xidhnayd mid aroor kasta boonshe siin jirtay midna misago midna caws mayna dareerin jirin halkaas ku xidhnaan jireen midkaba caan badan baa isleedahay Midka misigada la siyaabo caan badan. Waayo misigadu jirka wax badan bay ka soo saartaa. nafaqay leedahay Nafaqo badan bay leedahay. Marka midkaas ugu badan baan jeclahay. waayahay su'aashii maada garanin ahli jira abaalmarintiina naga qaadi maysid waayahay nin xali jiray ayaa baadiye lugeynayay kabacdi wuxuu ku soo baxay guri asagoo aad u aman guriga gudihiisa biyaha ku jira laakiin albaab iyo daaqad midna ma leh nin kale ayaa u yimid ninka kale ayaa gudaha galoo biyihii soo saaray xaggee buu ka galay ninka sano malaynay de ninka kale baa meesha laaba hadduu lahaa guri albaab iyo daaqad ma leh xaguu ka gelayaa laftigiisa guri aad leedahay albaab iyo daaqad toona lahayn xaggee ka gelayaa free watidi guri albaab iyo daaqad ma laha korka banana marka miya Ibcaas Cabdullaahi. dayib adeer waa ku soo dhaweynayaa su'aash ina ku diyaar ma tahay waayahay su-aashan ku weydiinaya sidan ay u dhacaysaa nin baadiye lugeynaya ayay gabadh lamaano ilmo wadata ka soo horbaxday kabacdi gabadhii wuu wareystay wuxuu ku yidhi ilmahan aad wadata yaa dhalay waxay ugu jawaabtay ilmahan anigu ma dhalin laakiin tii anigay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiin aniga ayuu qabaa Wuxuu qabaa. anigu ilmahan ma dhalin bay tiri laakiin tii anigay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiin anigu qabaa Su'aasha kama jawaabi karo. Kama jawaabi karo su'aasha. soo dhaweynaya walaal magacaaga saddexan waan dhaway magacaygu waa Yaasir Umar Cabdi yaasir inaad su'aal ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar baan ahaa waayahay su-aashu haddaad ka jawaabto abaalmarin baad leedahay aad afar yar kusii iibsatay su-aashu sidan ay u dhacaysaa nin ayaa guri ku soo baxay isagoo ooman guriga gudaha biyaha ugu jiray albaab iyo daaqad midna ma lahayn nin kale ayaa u yimid ninka kale ayaa gudaha galay oo biyihii soo saaray xaguu ka galay xaguuse ka soo baxay guriga daaqadii albaab soona ma lahayn biyana way ku jireen nin kale gudaha galay oo biyihii soo saaray dabcan wuxuu kala soo baxay wadaan yaa wadaan buu meel ka tuuro kala soo baxay guriga meel kale ma bannaan meelna ma banaanaba guriga albaab iyo daaqad midna ma laha meel wadaan laga tuura ma jirto maceel baa meesha may Isku day. waxay rukeeda hadda aye albaab iyo daaqad ma laha biyana ku jira waxaan albaab iyo daaqad lana biyo ku jira may ha ma hayo magacaaga saddexan walaal Cabdullaahi maxamed shooqid dalina cabdulaahi inaan su-aal ku weydiiyo diyaar ma tahay diyaar baan ahay haddii aad su-aasha aad garato abaalmarin baanu ku siinaynaa haddii aad garan weydana waad iska soconaysaa waayo su-aasha sidan ay u dhacaysaa nin baa baadiye lugeynayay asagoo aad u ooman buu guri ku soo baxay guriga gudaha biyaha ugu jira laakiin albaab iyo daaqad midna ma leh asagoo ku dul wareegsanaya ayuu nin kale u yimid ninkii kale ayaa gudaha galay biyihii buu soo saaray way wada cabbeen xagguu ka galay xagguu ka soo baxay ninkaas de kaash meeshu ka geli waayay buu ka geli waayay kan ma galay kaas wala wuu kale wuu soo saaray biyihiina waa la cabbay ku celi su'aasha ya nin baa asagoo ooman buu guriga dul yimid ay albaab iyo daaqad ma leh gurigii ay biyaha gudaha ugu jiray ay nin kale u yimid ninkii kale gudaha intuu galay biyihii soo saaray ay way wada cabbeen Ay. xagguu ka galay su'aashaasi waa sawankee ma garayo waayahay magacaaga saddexan Kawande. Maxamed Cabdullaahi. kamaande waan ku soo dhaweynayaa su-aal baan ku weydiinaya xaleelaalaha diyaar ma tahay Aad iyo aad. haddii aad ka jawaabto abaalmarin baad leedahay haddii aad ka jawaabi weydana rabadaan kariim baanu ku leenahay waayo su-aasha sidan ay u dhacaysaa nin baa baadiye asoo lugeynayuu guri ku soo baxay aad buu u oomanaa
guriga gudaha biyaa ugu jiray albaab iyo daaqatoona midna ma lahayn guriga nin kalaa u yimid asagoo guriga ku dul wareegsanayay kii kalaa gudaha inta u galo biyihii ka soo saaray wayna cabbeen ninka xaguu ka galay xaguu ka soo baxay waxaan dhihi karaynaa marka hore guriga ku dhex jiray ninkaas biyaa kuma jirin asagoo halkii taagan nin kale ugu yimid oga albaab iyo daaqad lama lahayn albaab iyo daaqad hadduusan lahayn xaguu geli karaa baan dhihi karaynaa waayahay markaasuu samaystay albaab iyo daaqad baan dhihi karaynaa aad baad mahadsantahay maada garanin waad mahadsantahay way waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga saddexaad yaasiin maxamed cabdi yaasiin diyaar ma tahay inaan su-aal ku weydiiyo diyaar baan ahay waayo su-aasha ku weydiinaya haddii aad garato abaalmarin baad naga helaysaa haddii laakiin aad garan weydo ramadaan kariim baanu kulena su-aashu sidan ay u dhacaysaa nin baadiye lugeynaya ayaa wuxuu ku soo baxay guri isagoo aad u ooman guriga gudaha biyaha ugu jiray guriga albaab iyo daaqad midna ma lahayn kabacdi asagoo wareegeysanayo nin kale u yimid ninkii kalaa siduu usoo ordayay buu gudaha intuu galay biyihii soo saaray halkii bayna ku wada cabbeen ninkaa xaguu ka galay gurigaas albaab iyo daaqad ma lahayn guriga albaab iyo daaqad ma lahayn xaguu ka galay biyihii soo saareen guriga albaab iyo daaqad lahayn biyo xagee ka galayaan marka hore biyaha gudaha ku jira guriga albaab iyo daaqad laakiin ma lahayn gudaha intuu u galay buu ka soo saaray biyihii wayna cabbeen xagee buu ka galay xageesuu ka soo baxay ceel baan malaynayaa ceel baan malaynayaa waayo waa mahadsantahay su-aal inaan ku diiyo diyaar ma tahay diyaar baan ahay waayahay su-aasha sidan ay u dhacaysaa nin ayaa baadiye lugeynayay wuxuu ku soo baxay waxaa lihi jiray gabadh ilmo wadata gabadhii buu ku yidhi ilmahana wadata yaa dhalay waxay ku tiri ilmahan anigu ma dhalin laakiin tii anigay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiin aniga ayuu qabaa sidee ku dhacday saashigu soceli nin ayaa ku soo baxay gabadh ilmo wadata gabadhii buu ku yidhi waxaa lihi jiray ilmahan yaa dhalay kabacdi waxay ku tiri ilmahan anigu ma dhalin laakiin waxaa dhashay tii anigay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiin aniga ayuu qabaa ay saasha ma garan ya ma garan saasha aware su-aal ayaan ku weydiinayaa su-aashan ku weydiinaya sidan ayay u dhacaysaa islaan ayaa lahayd saddex beer bay dusheeda ugu xidhnayd marka mid waxay siin jirtay caws midna waxay siin jirtay bal midna waxay siin jirtay misago midkee u caana badan waxaa u caana badan midka la siin jiray misagada midka la siin jiray yaa u caana badan waayay maada garanin aad baad mahadsantahay walaal ayaga adaa mudan waayay waan ku soo dhaweynaya magacaaga saddexaad magacay waa nuur cabdullaahi xaaji nuur su-aal baan ku weydiinayaa diyaar ma u tahay su-aal xalala inaan ku weydiiyo waan isku dayaa insha allah kulley ma dhihi karo waan garanaya laakiin waan isku dayay insha allah waayahay nin baa meel baadiyaa lugeynayay kabacdi wuxuu ku soo baxay guri aan albaab iyo daaqad aan lahayn wuuna oomanaa biyana gudaha ugu jireen kabacdi asagoo wareegeysanaya meeluu ka gala la ayaa nin kale u yimid ninka kale ayaa gudaha galay biyihii buu saaray waxa la jira halkii bay ku cabbeen xagee ka galay ninkaas de ninka kale wuxuu yidhi soomaa albaab iyo midna ma lahayn de ninka guriga dhexdiisa ka soo dhex bax bay buu yimid baa banaanku ka yimid aye wakaa meeshu ka galan u baahanay ka saba de ninkaas waxay ka dhiganta ninka guriga lahaa weeye daaha meesha ku yaalla uu garanayo iska fayday bay kulley intaas aniga iga dhantahay waa mahadsantihi way aad mahadsantahay magacaygu saddex qadar xayi xuseen walaal khadar diyaar ma u tahay inaan su-aal xalxalaalaha ku weydiiyo diyaar baan u ahay waayahay nin baa meel baadiye aa lugeynayay waxa uu ku soo baxay guri ay biyo gudaha ugu jiraan laakiin albaab iyo daaqad midna aan lahayn nin kale ayaa u yimid ninka kale ayaa gudaha galay oo biyihii soo saaray xaguu ka galay daaqadu ka galay maba lahaba lugi isku day iigu celay nin ayaa guri u yimaaday biyo gudaha ugu jiraan asagoo ooman sax guriga albaab iyo daaqad midna ma lahayn nin kale ayaa u yimid asagoo halkii taagan ninkii kalea orod ku dhaafo gudaha intuu galay biyihii soo saaray u keenay ninka meeshu ka galay iyo meeshu ka soo baxaan u baana daaqadii albaabkii buu ka galay see uga galay albaab iyo daaqad midna ma labaan kood haddaad ku guulaysato abaalmarin baad helaysaa biyaha gurigan baa la dilaaciyey biyaha albaabkii fa laga gala male biyuhuna saasay ku soo baxeen waayo walaal waan ku soo dhaweynayaa magacaaga saddexaad waan dhawaay magacaygu waa maxamed bedel maxamed maxamedow diyaar ma u tahay inaan su-aal xalxalaalaha ku weydiiyo okay diyaar baan ahay waayahay su-aasha sidan ay u dhacaysaa islaan beeraley ah ayaa saddex dibi lahayd beerta dusheeda ay ugu xidhnaayeen maalin kasta mid waxay siin jirtay buunshe midna masago midna waxa la jiray caws midkaba caana badan baa isleedahay dibi caana ma lahaba dibi caana ma laha waayahay waad ka jawaabtay su-aashaasi aad baad umahadsan tahay haddaad sii wadanaysana diyaar waan ku soo dhaweynaya walaal magacaaga walaal magacaygu waa cabdimanaan sheekh xuseen cabdimanaan waan ku soo dhaweynayaa mar kale diyaar ma u tahay inaan su-aal xalxalaalaha ku weydiiyo
diyaar baan ahay waayahay islaan beeraley ah ayaa waxay lahayd 3 dibi beerta dusheeda ayay ugu xidhnaan jireen ma dareeriso macnaha halkaas ku xidhan yihiin mid waxay siisaa buunshe midna masago midna waxay siisaa caws midkeeba u caana badan baa isla hal mar su'aasha igu soo celi islaan reer miyiga ayaa beer lahayd 3 dibi baa beerta dusheeda ugu xidhnaa ma dareeriso mid waxay siisaa masago midna waxay siisaa buunshe midna waxay siisaa caws midkeeba u caana badan baa isla niyo kolley dee waa dibidu caana ma waxayaan marka dee dibigu caana lagama leso wixii la siiyo waa dibi oka waya aad baad mahadsan tahay waad ka jawaabtay su-aashaadii abaalmarintan baad leedahay waya walaal waa ku soo dhaweynaya magacaaga saddexan magaca saxan faysal aadan faysal diyaar ma tahay inaan su-aal ku weydiiyo su-aalaha xalxalaalaha ayaan maanta wareejinayna dabcan haa haddii aan fahmi karo waayahay haddii aad waxaa la jiray aad su-aalahaasi aad mid ka mid aad garato abaalmarin ayaad heli doontaa haddii aad markaasi dabcan aad garan weydana dee rabadaan kariim baanu ku leenahay waaya su-aashu waxay ku odhanaysaa nin ayaa meel asagoo lugeynaya waxaa ka soo horbaxday gabadh ilmo wadata ilmihii buu ku yidhi markaasi maadigaa dhalay gabadhii buu ku yidhi maadigaa dhalay saa waxay ku tiri aniga ma dhalin ee waxaa dhashay tii aniga ay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiina aniga ayuu i qabaa limaano su-aashaas iyadoo ku dhimi adag tahay mar baad ku celiba waaya nin ayaa asoo lugeynaya gabadh ilmo wadata ka soo horbaxday se wuxuu ku yidhi ilmahan aad wadato yaa dhalay waxay ugu jawaabtay tii aniga ay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiina aniga ayuu i qabaa ti aniga i dhashay tay dhashay tay dhashay yaa dhashay yaa dhashay aabihiina aniga ayuu i qabaa iyada ma dhashay aniga ma dhalin bay ka bilow sheega aniga ma dhalin ilmahane tii aniga ay dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiina aniga ayuu i qabaa dhashay umad ku celisay aniga ma dhalin bay ka bilow gabadhu ilmahan ani ma dhalin laakiin tii aniga dhashay tay dhashay baa dhashay aabihiinaas aabihiina anigu i qabaa anigu i qabaa tan gabadhan walaasheed ilmahan dhashay ya walaasheed salaam way dhimatay iyada la siiyey ninka marka saas dabcan saas noqotaa dabcan su-aasha 95% waad ka jawaabtay waayahay mar kale jeceshayna barnaamijkan su-aal kale aan ku diyo haddii aad ku guulaysato abaalmarin kale ayaad helaysaa su-aal kale dabcan haa intaas aye islaan ayaa lahayd 3 dibi oo beer dusheeda ay ugu xilneed mid waxay siin jirtay caws midna waxay siin jirtay buunshe midna waxay siin jirtay masago midkeeba u caana badan baad leedahay saddex ku celi islaan beeraley ah ayaa 3 dibi lahayd beerta dusheeda ugu xilneed mid waxay siin jirtay masago midna buunshe midna caws midkeeba u caana badan baad leedahay buunsha buunsha aad baad mahadsan tahay maada garanin aad baan kugu mahad celinaynaa aad mahadsan tahay